Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada barnaamijkeena ogaalka cilmiga. Barnaamijkan maanta waxaan isbarbar dhigi doonaa laba nin oo qisa isku mid ah ay ku dhacday. Qisadan waxay ku qabsatay labada nin badda, balse qisadu waxa ay dhacday laba waqti oo kala duwan. Qisadan ayaan rabaa dhagaystay inaan kula wadaago maanta. Qisadu waxa ay u dhacday satan. Waa Paul Lim la socdo marka British ah isagoo English garanayn. Lim waxa uu badda ku jiri doonaa 130 maalmood, halka Alpha reenkana uu badda ku jiri doono ilaa 438 maalmood. Marka maxay ahayd casharada laga bartay? Kow, ha fududaysan mawjadaha badda iyo marka ay dabayli jirto, xataa haddaad xariif badan tahay. Ha isdhiibin ama cabsi yaanay xal ku noqon. Barada baasha. Alpha iyo saaxiibkii ayaa waxa ay u anbabaxeen kalluumaysi. Muddo markay badda ku jireen ayaa cirka daruuro isa soo qabteen. Waxaa kacay mawjado badda ah. Biyihii ayaa ku soo fatahay doonidii yareyd ee kalluumaysiga ayay biyihii dhinac kasta ka soo galeen. Waxay direen raadiyo. Kabtankii ayaa waxa uu amray in ay dib ugu soo noqdaan bariga, balse Alpha reenka ayaa diiday. Badda markaa kalluun badan ayaa buuxay. Alpha reenka aad ayuu ugu baahnaa kalluunka maadaama uu badda u soo galay kalluumaysi. Doonidii waa ay qallibantay. Badda waxaa ku soo hadhay Alpha reenka iyo saaxiibkii iyo biyihii badda. Dhanka kale, Lim ayaa markabkii uu la socday muddo markii uu badda ku jiray. Isagana waxaa ku kacay dabaylo iyo duufaan, midaas oo sababtay in dhammaan dadkii ku jiray ay dhintaan. Kaliya waxaa ka soo hadhay Lim iyo biyaha badda. Hadda Lim waa keligii. Waxa kaliya ee ay u baahan yihiin waa hadh iyo biyo iyo cunto. Dhanka kale, Lim waxa uu dhistay shiraar yar si uu u hadhsado. Waxa u wanaagsanaatay saddexda ninba cimilada toddobaadyo, balse saddexda ninba waa in ay cabaan kaadidooda si ay u badbaadaan. Maalin ayaa waxa uu Alpha reenka xaqiiqsaday in saaxiibkii dhintay isna dilay. Alpha reenka iyo Lim hadda mid kasta waa keli, waa isaga iyo badda madow. Mid kasta marka labadan qiso way kala duwan tahay. Mid waxay dhacday baan nidhi 2012, halka ay midda kalena ka dhacday dagaalkii labaad ee adduunka waqtigii lagu jiray. Waxayna ku dhacday waa Lim oo waxaan nidhi waxay taariikhdu ahayd 1942. Alpha reenka waxaa soo ag maray isagoo rajaynaya in uu badbaado markab, balse Alpha reenka wax gargaar ah ma weydiisan maadaama uu daalanaa tacbaan xooga. Lim waxa uu gacanta u haadiyay markabkii, balse waa iska dhiga tiray inay badbaadiyaan Lim. Sababtuna waxaan nidhi Lim waxa uu badda ku halaabay markii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka 1942, halka Alpha reenka ay ahayd 2012. Waxaana u dhaxaysay 70 sano labada nin. Alpha iskuma uu dayn inuu dabaasho, midaas oo u noqon lahayd jimicsi. Daraasado badan oo la sameeyay ayaa waxa ay shaacisay in jimicsiga badan oo kordhiyo awoodda. Dhanka kale, Lim waxaa helay ninkii Lim hadda waa badbaaday. Waxaa helay Brazilian kalluumaysta ah. Dhanka kale, Lim waxaa loo soo dhaweeyay si weyn. Waxa uu noqday geesi. Waqtigaasna waxaa la guddoonsiiyey dhalashadii Mareykanka. Intaa waxaa u dheeraa in qaar ka mid ah habkii uu badda ugu noolaa lagu tababari jiray ciidanka Mareykanka, laguna daray habka loo tababaro ciidanka badda ee Mareykanka. Waxaan ka faa'iidaysanaynaa qisadan nolosha inaad niyad wanaag iyo samir la timaado. Intaana waxaad u baahan tahay inaad ku darto dadaal, adoo iloobay inaad jimicsato maalin kasta si aad hadafkaaga u gaadho adoo weli awooda inaad guulahaaga sii hogaamiso. Barnaamijkeennina maanta waxaan ku soo afmeeraynaa intaan ku kulmi doono mid kan oo kale ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.